filimkeena wuxuu ku bilaabmayaa gabar lagu magacaabo Hana oo joogta maqaaxida iskuulka waxaa si aad u dulminayo asxaabteeda fasalka ayuun ayaa si gardara biyo ugu shubtay cuntada Hana iyadoo arrinkaas dagaal ka raadinayso haatanna bariiska ayaa laga qooyay Hana ayaa u dulqaadan weysay gardarada ayuun waxayna sii wadatay cunista cuntadeeda Hana ayaa si naxariis ku jirta asxaabteeda ku dhaaday dhibka liiga daayo haatanna dhammaantood way iska indhatireen Juba ayaa cuntada korkeeda ku duldaadiyay Hana dhammaan ardaydii ayaa soo jeesteen wayna ku wada qosleen haatanna Linshu ayaa u adkeysan waayay dhibka loo geysanayo Hana wuxuu ku jawaabay gabadha dhibka laga daayo Juba ayaa u imaaday Linshu waxa uu dhahay afaraas ka bax maxaa ku geliyay rarbaxsha ayuu ku dhufar rabay waxa soo galay maamulaha iskuulka labadoodu wuxuu ku amray dabaqa sare ee iskuulka inay 2 maalmood saarnaadaan daqiiqada kadib Linshu iyo Juba ayaa isdagaaleen Linshu ayaa si lama filaan dabaqa loogu tuuray Linshu waxa loo qaaday isbitaalka isagoo dhaawaca daqiiqada kadib waxa isbitaalka yimaaday Linshu aabihiis isagoo aad ugu naxay dhaawaca cunugiisa maalmo kadib Linshu ayaa ka soo baxay isbitaalka isagoo imaaday gurigiisa balse Linshu xaaladiisa ma dhameystirna waxa uu waayay dhimirkiisa guriga markuu u imaaday waxa uu arkay xaaskiisa wuxuuna damcay inuu dilo iyadana waxay dareentay Linshu inuu maankiisa joogin intaas kadibna waxa ay wacday booliska ayaa imaadeen waxayna xirxireen Linshu waxaa la keenay isbitaalka waxaana keenay aabihiisa si loo ogaado xaaladiisa caafimaadka dhakhtarka ayaa sheegay in Linshu maskaxdiisa jug gaartay haatanna guriga marka ay imaadeen Linshu waxaa la weydiiyey qofka dabaqa ka soo tuuray waa uu xasuusan waayay intaas kadibna waxa ay soo aadeen iskuulka maamulka iskuulka ayay weydiiyeen wiilkiisa qofka dhibka u geystay maamulka iskuulka ayaa Linshu weydiiyey qofka dhibka u geystay inuu xasuustay iyo in kale waxa uu ku jawaabay ma xasuusta maadaama Linshu maskaxda uu leeyahay Linshu iyo waxa isa soo raaceen macallimiintiisa fasalka ayayna soo galeen isagoo raadinaya qofka dhibka u geystay Linshu marka uu soo fadhiistay fasalkiisa ayaa Jack iyo Joby wuxuu kala kulmay caay Linshu uu ka aamusay ficilkaas foosha xun ee lagu sameeyay bareega markii la soo baxay banaanka Joby ayaa mar kale gardaro u la imaaday Linshu ayaa u adkeysan waayay hadallada Joby kadibna waxa uu sameeyay gacan qaad haatanna labadooda sidaas ayay isku dagaaleen Linshu oo garaacay Joby asxaabtiisa soo carareen iyagoo caawinaya saaxiibkooda Linshu marka uu gurigiisa imaaday waxa uu soo xasuustay gabadha lagu magacaabo Hana dhibaatada loo geystay subaxii marka uu iskuulka imaaday ayuu waxa uu arkay Hana oo miiska hurdayso ayaa waxa soo kicinayso gabar lagu magacaabo Darani madaxa ayayna ka dharbaaxday haatanna waxa arkay Linshu waana uu adkeysan waayay ficilada lagu sameeyay Hana intuu uu soo istaagay ayuuna Hana u tagay Linshu waxaana uu sheegay dhibaatada loo geysanayo in sidaan looga aamusi karin halkan uu yahay inay iska celiso wuxuuna talo ku siiyey labadooda inay tababar soo qaataan si ay dadka isaga celiyaan maalintii xigtay Hana waxay soo aaday gurigeeda dhibka loo geystay ayayna u sheegtay aabaheedana wuxuu ugu jawaabay inuu siin doono tababar dagaal si ay isaga dhiciso dadka dhibaatada ku hayo iyada Hana waxay qaadatay tababar adag ay ku kalsoon tahay dhanka kale Linshu ayaa qaadanaya tababar si uu u noqdo qof jirkiisa dhisan oo dagaalyahan ah dhanka kalena Hana ayaa u mahadcelisay aabaheeda subaxii markuu u imaaday Linshu iskuulka gabdhihii dhan ayaa la yaabeen isbedelka ku dhacay jirkiisa awgeed dhinaca kalena bareegii marka la gaaray Hana oo cunto guranayso Darani ayaa dharbaaxsho ku soo tuurtay laakiin Hana way iska difaacday Linshu oo cunto cunaya ayaa la yaabay qaabka ay u dagaalamayso Hana ardaydii meesha joogeen oo dhan ayay aad ula yaabeen waxa meesha ka dhacay maalintii xigtay Linshu waxa uu soo aaday maqaaxida hooyadiisa si uu cunada bareega meesha ugu cuno maqaaxida hooyadiisa waxaa joogay nin maqaayada macaamilka ahaa hooyadiisana dhibaato ku han jiray sikadiisa Linshu cuntada uu cunayo ayuu wuxuu arkay hooyadiisa oo badar miiska u dhigayso nin maqaaxida macaamilka ahaa oo foodeeyay hooyadiisa intaas kadib waxaa soo istaagay Linshu hooyadiisa ayuuna ku dhahay banaanka u bax wuxuu si aad u garaacay ninkii foodeeyay hooyadiisa ayaa dhahday iska dhaaf maalintii xigtay Joby ayaa afduubtay Hana wuxuu madaxa ugu shubay cabitaan intaas kadib waxa uu imaaday Linshu dhammaantood ayuuna wada garaacay waxa uuna meesha ka waday Hana maalintii xigtay Linshu aabihiisa ayaa ku qeeliyay wuxuuna dhahay dagaal dambe inaan kugu arko ma rabi Linshu waxa uu aaday maqaaxida hooyadiisa si uu cunto ugu cuno halkaas waxay ahaayeen isaga iyo aabihiisa waxa maqaaxida imaaday ninkii uu garaacay isaga iyo qolo dagaalyahana ah oo isla socdaan isla markii meesha dagaal ayaa ka dhacay Linshu waxa uu garaacay qoladii oo dhan Master Shawa ayaa qoorta midi ugu qabtay Linshu waxuuna ku wada durduray mididii Master Shawa isagoo qali raba Linshu hooyadiisa ayaa ku ajabtay inay qarxin doonto gaaska cuntada lagu kariyo haddii wiilkeeda la sii deen waayo intaas kadib Linshu hooyadiisa waxay shiday jantada wayna sii daayeen goobta ayayna iskaga carareen Linshu waxaa loola cararay isbitaalka waxuuna galay koomo la socota xanaha lagu magacaabo The Dude in Me 2019 qaybtiisa labaad kaasoo ka xiisa badnaan doona qaybtiisii koowaad aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin